ururka samafalka Soomaaliyeed ee Alfa Trust ayaa dhaqaalo gaarsiiyay qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee ku dhibaataysan magaalada madaxda gobolka Boqol ee Xudur waxaana dadka ka faa'iideystay isugu jiraan dadka qaba baahiyaha gaarka ah dad agoomo haysta iyo kuwa danyar ah oo dabshidkii xitaa la asanaa Aamina Xasan Maxamed oo loo soo wakiishay deeqdan lacagta ah isla markaana ku wareejisay dadkii loogu talagalay ayaa marka hore faahfaahinaysa deeqda iyo dadka ka faa'iideysanaya hay'ad la eero Alfa Trust anina dad aan baahanayay gargaarna aan baahanayay deeqna aan baahanayay xillo toosan oo dhabyaalina ka toostiya nasiib joonagati dad naafe aan shaqaysado korna curyaamiga aan shaqaysado korna ya nasiib joonagati qaar ka mid ah qoysaskii la gaarsiiyay deeqaha ayaa iyagana ka mahadceliyay الدنيا آخر الله الدنيا لما تدهرود بعدين صوبي إلهي جهدي هنوا تبر إلهي اللي تبر هنوا نهايت أدي إنه محمد الله يا إنه مدرس وين الدنيا آخر مدرس نها وين نكتي بالمهاران كهاين هنوا تواتوسنا يا إنه تواترو كبي الدنيا آخر أنت أصلاً أن باهنا إن ذات أريان إشاك أيسد قرآن لما توسن جيك أنت هديبتين أن دعائني مراجع الله ولا كلا الله سي أنت أساسين هلني إلهي مهلا سين دعائني مرادك على سين بس لك سميكين تردونت بس ما ينتردونت أولادي باهنا والباقى نوبا وايسناين نوبا وايسناين هنو نولا نياتمتن الحمد لله أولاد الشان أولو شان أنت أسا جيك حتى جيك نولا إن هلا الحمد لله إلهي ولكو توغي مسلمين تهنين قرطي هنين لمحبوتي أرقد هورتصدي بصدق يراغ مله أدون آقرب إني إلهي كقولي sidoo kale gudoomiyaha ururka samafalka Alfa Trust Daahir Cali Kulmiye ayaa sheegay in mar walba ay garab taagan yihiin dadka dhibaataysan waxaan dhibka la qaybsanaynaa walaalaheena Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gobolka Boqol ururka Alfa Trust waa urur samafal ah oo loogu adeega dadka danyarta ah ee Soomaaliyeed waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan xubnaha ururka oo mar walba u taagan gurmadka dadka Soomaaliyeed ma ahan markii ugu horeysay ee ururka Alfa Trust uu gurmud dhaqaale gaarsiiyo deegaanada hoos yimaada koonfur galbeed ee Soomaaliya iyadoo hore uu ururka mashaariic kala duwan uga hirgeliyay magaalooyinka Marka iyo Baydhabo Muxdin Xusni Xudur Boqol